waa maalin kale iyo meel kale. waxaanu qalab qaadanay maanta deegaan dalxiiseedka Bixinduule oo ku yaala deegaan hoos yimaada gobolka Saaxil. waxaanu ka ambabaxnay 9kii subaxnimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer annagoo sii jeedna deegaanka dalxiiska ku habboon ee Bixinduule. safarka socdaalkayaga oo saacado dhowr qaatay waxaanu waqti nasasho iyo qaday isugu jira ku qaadanay tuulada Hudisa ku dhawaad 80 kiiloomitir oo aanu ka soo sokoynay magaalada Burco. waxaanu hadda soo gaadhnay tuulada Geedlokor. tuuladaasi oo halka looga leexdo deegaanka Bixinduule. tuuladan markaad joogto waxaa 9 kiiloomitir oo raf ah uga leexanaysa dhinaca galbeed. halkan oo ah Bixinduule markii aanu soo gaadhay waxaanu daymada indhaha la raacaynay cagaarka kala duwan ee dhirta waxaana ka baxda noocyada kala duwan ee khudaarta sida saytuunka, cambaha, timirta, muuska iyo walibana waxyaabo kale. waxaanu arkaynay durdurada biyaha oo meel sare ka soo daadanaya. sidoo kale waxa la yaab nagu noqotay markaanu aragnay kalluun ku dhex dabaalanaya durdurada. maqalka dhagahayagu waxay ku raaxaysanayeen codadka shimbiraha ee dhawaaqyada kala duwan. sanka waxaanu la raacaynay carfiga iyo udgoonka dhirta. dalxiisayaal badan ayaa ku soo qulqulaya goobtan dalxiiska ku fiican si ay qayb ka mid ah waqtigooda ugu qaataan goobtan. dadkani waxay ku mashquulsan yihiin galista sawirro qurux badan oo ku habboon jawiga. maanta waxay galayaan sawirro baritoon wax xasuus ayay u noqon doontaa. kuwo kale waa ay dabaalanayaan. goobtan deegaanka Bixinduule laado waa deegaan ku habboon dalxiiska jawiga. waa deegaan qalbiga qofku ugu degayo. waa deegaan uu kaga raysan karo buuqi magaalooyinka uu kaga raysan karo shaqadii faraha badnayd iyo daalkii. waa deegaan uu ku ilaabi karo waan oran karaa qofka shaqaynaya ama qofka magaalooyinka hadii jeer ku raago kala stress ko kala ku furmo. waa deegaan lagu ilaawi karo wax kasta oo dib aad ka filanaysa magaalada dhexdeedii. deegaankan waa deegaan ku habboon in qofka bini'aadanka ah uu intuu yimaado waliba uu waxaan ku soo qaato shaahiisa iyo imkaaniyaadkiisa yar u baahan yahay halka cawla kala baxo isagoo ammaankiisa iyo xaaladiisina waxaan ku ay sugan tahay. jawiga barwaaqo sooranka Ilaahay bixiyayna uu marba dhinac ka milicsanayo. marka waxaan oran lahayn deegaankan waa deegaan aan laga maarmi karin oo looga maarmi karin nasashada iyo dalxiiska. waa dhulkii la oran jiro kale maanta aanu aragnay baan oran karnaa anigu dhulkii la oran jiray dhulkina nimca fadhida maanta halkan Bixinduule fadhida baan leenahay. deegaankan Bixinduule hortiin muddo kulay adigu bidiyo xoogaa yar ka hor baan martay ka war helay anigu waan helay shaashadahan ka daawaday ama sawirradooda arkay. goobtan markii aan ka war helay ugu horeyn horta sawirrada muuqaalkan arkay baan si weyn ugu hiloobay inaan imaado baan ku hanweynaa mar walba. deegaankani waa deegaan ka mid ah Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. waa deegaanada runtii Soomaaliland ku dhex yaala aadka u quruxda badan leh. maanta anagoo dalxiisayaal badan waxaan soo booqanay deegaankan oo ku yaala Soomaaliland gaar ahaan Berbera iyo Sheekh dhexdooda.
magaciisa waxa lagu magacaabaa bixin duule run ahaantii markaad halkan timaado waxaad dareemaysaa wadaniyad dhaba iyo waxa weeye jawiyo furfuran oo aan runtii aan hore loogu arag gabi ahaan geyga Soomaalida run ahaantii aad baan u faraxsanahay maanta ilaa markaan ilaa hadda roob baan ugu daaya deegaankani haddii aad timaadaan indhaha kuma hayn kartaan waxaan leenahay dhalinyarada reer Somaliland ee joogta daafaha Somaliland ay noogaana dalkeena dadka qaar waxay uga yimaadeen meelo fog si ay ugu soo raaxaystaan dhulkooda hooyo horta ma sha Allah maanta jawiga aan qiyaasi karo amba maanta aan oran karo maxay tolay waa jawi aan dareenkii ku cabir karaba maaha oo waa jawi aad u qurux badan hadda daruuraha cirka marayo kala daruuraha sida quruxda badan ay u rooban yihiin dhirta Greega ma sha Allah waa jawi aad iyo aad ugu qurux badan maadaama maanta asxaabtaydi jaamacadda wali banaan la socdo oo asxaabtii jaamacadda dhanaan wadanahay walayn horta run ahaantii anigu Hargeysa ka soo kicintinay oo Hargeysa ka nimid oo jawigan quruxdiisa aan ugu nimidineen Hargeysa maxay tolay aan bal jawigan social media maraya balse aad marun soo aragtaan laakiin inda wax yar kan biilka gooyay Soomaalidu ku mahmaada marka waxaan aragnay wallahi jawi maanta aan inaba hadal iyo maxay tolay odaha midna baan lagu soo koobi karin intaan ku soo guda jirnay safarkeena dalxiiseedka bixin duule indhuhu waxay qabanayeen dhir qurux badan dooxiyo jawigu iyo naftu ay ku degayaan runtii waxaan kula kulanno kale dalxiisayaal aad u badan annagoo nafta ay nagu degtay dadka kulaylka iyo ka cabanaya iyo magaalada saxmadeeda waxaan u sheegaynaa in halkan imaadaan oo ay waqti ku qaataan deegaanka bixin duule waxa uu leeyahay waxyaabaha nolosha aadamaha aasaasiga u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waana deegaan ku habboon nolosha aadamaha markaad eegto jawiga iyo cimilada qabow goobtani waxay ka mid tahay goobaha ugu bilicda iyo quruxda fiican Somaliland dadku waa inay ku baraarugsanaadaan bilicda dhulkooda hooyo wasaaradda dalxiiska Jamhuuriyadda Somaliland waa inay maalgelisaa goobaha dalxiiska si dalxiisayaal badani u soo booqdaan isla markaasina dakhli uga soo xaroodo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya وراليد الشاخيو بحين دولي وحيل وراليد الشاخيو بحين دولي وحيل وبري سمادو حوله برغنايا وبري سمادو حوله برغنايا محمد يوسف عبد الله محمد وردي TV qaranka Jamhuuriyadda Somaliland deegaan dalxiiseedka bixin duule oo ka tirsan gobolka Saaxil